بسم الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. waxaan rabnaa inaan ka jawaabno su'aalo ka soo laabtay muuqaalka shalay oo aan uga hadlaynay boogaha ku dhasha caloosha iyo mindhicirka qaybta u soo horeysa oo loo yaqaan duodenumka. xanuunkaas medically waxaa loo yaqaanaa peptic ulcer diseases oo ka dhigan boogo ku saabsan meelaha soo sheegnay. su'aasha koowaad ka soo laabatay waxa weeye xanuunkani ma xanuun يعني ولقي كورونا أنا يوميا نسوي حنون قدوة بكرة. ذلك قارب حامسيه إنه حنون تقانا ولقي كورونا أنا يا أو أنا تقانا لقدوة بكرة. حنون كان وحنون لقدوة بكرة ما حنون كورونا أنا يا. طبعا ويجران حنون إلا هذا واحد والله كرونيك ديسيس اللي يقانو أو كم ديهين ليكركا وحلا يقانو بالبديبية ذا يوحلا يقانو سنكروجا أما ديابيتسكا. xanuunadaasoo kale waa xanuuno qofku la noolaanayo weligiis oo aysan u badnin inuu ka dawoabo ilaa hadda inta la ogyahay caafimaadka ama aqoonta bini'aadanka ee qaybta daweynta iyo qalimada ay gaarsan tahay. laga yaabo waqti soo socda 10 sano kadib ilaa 10 sano kadib in xal loo helo waa suuragal, laakiin maanta laga soo jooga iyadoo saasoo kale maaha xanuunkani waa xanuun dawo leh dabcanna marka logical loo fiiriyo waa nabar ku samaysmaya caloosha iyo mindhicirka qaybta u soo horeysa. just like waxa weeye nabar ku samaysma wejigaaga oo kale. sababta uga duwan tahay waxa waaye waa meel qoyan mar walba cunto soo marayso mar walba dheecaan lagu soo sideenayo. that's why marka way meel qoyan yani meel qalan way kala bogsi og yihiin yani way ka bogsashadeedu aad yani waqti dheer u qaadanaysaa marka loo fiiriyo meelaha qalan. tusaale ahaan aniga hadda wejigayga kale hadduu nabar igaga dhaco yar ama halka hadduu nabar yar iga soo baxo meeshaas nabarkaas inuu bogsado ama nabar iga gaaro tusaale ahaan inuu bogsado ma yani waqti badan qaadan mayso. sababtan waxa weeye waa meel qalalan meel mar walba mataqaanaa la qoynayo inkastoo weji ay tahay dabcan oo mar walba weysan muslimnahay laakiin haddana yani meel mar walba cunto soo marayso waa meel xataa shirooto la saari karo caloosha si shirooto ku saaraysa ama mindhicirka si shirooto ku saaraysa. marka inkastoo ay jirto xaaladaha qaar la qali karo oo ay qaliin noqdaan xanuunka ku sheegayo oo dabcan inta dadka mataqaanaa ay ka ogyihiin oo ka khatarsan yahay haddana ma aha xanuun mataqaana dadka la noolaada oo weligii la noolaanayo oo dawo loo hayn maaha. waa xanuun dawo leh oo laga dawoobi karo. dadka qaar ku leeyahay 10 sano qabay 5 sano qabay weliga qab intaas sano laakiin jawaabta saxda waxa weeye waa xanuun laga dawoobi karo dawo sax u leeyahay sida sax haddii la qaato protocol lagu talagalay amartid waa ka dawoobaysa insha Allah. dabcan wax walba ilaahay ku xoriyana taa marna ka tagin. su'aasha labaad soo laabatay waxa weeye xanuunkan waa dadka ugu soo laabtaa mar walba qof wuxuu ku leeyahay yani hadda 5 sano ugu dambeysay mar walba inta soo jeer 10 jeer ama 5 jeer ama 6 jeer yani dhowr jeer laga daweeyay buu ku leeyahay mar walba ugu soo laabtaa. horta sida caadiga ah waxa u baahnaa inaan fahanno xanuunku qofka hadduu ku dhaco inuu ku soo laabto xadiidaya ma jiraan. haddii xanuunku ku dhaco inuu kugu soo laabanayo yani waa suuragal hargab baa kugu dhacay bil ka hor 2 bil kadib inuu kugu soo laabto asbuuc kadib inuu kugu soo laabto waa wax caadi ah. marka xanuunkan inuu kugu soo laabto waa wax caadi ah. taana waxay ku xiran tahay xanuunkan wixii keenayay inaa markaa inaa is aragtiin. tusaale ahaan dee qof hargab qaba is aragtiin adoo hargab qabin waxay u badan tahay inaad ka qaadi doonto maadaama xanuunku contagious yahay oo la kala qaadi karo. just like waa saas oo kale weeye waa xanuun qofku mataqaanaa haddii waxyaabihii keenayay aad is aragtiin bacteriada loo yaqaana bacteria pylori sababaha kasoo hadla hadda is aragtiin yani waa wax mataqaanaa kugu dhici kara waa normal kugu dhaco marka taas waa taas. tan labaad waxa weeye oo aan is leeyahay oo u soo laabtaa waxa weeye wadadii saxda ahayd ee la rabay inaan u marno daweynteeda uma marno wax baa ka khaldan dabcan baa is leeyahay ha noqoto habka qaadashada dawada waqtiga qaadashada iyo wax la midka ah. sidoo kale waxaa iyadana fahan u baahan inaan yani waxaa jira qof dadka waxa loo daweyn karaa in medical loo daweeyo iyo in la dhaho lifestyle-ka wax ka bedel cafwan lifestyle-ka wax ka bedel waxaa ka mid ah sigaarka jooji, khamrada jooji, gacmahaaga markaa cunto si fiican u hagaaji, cunto hagaagsan cun, biyo hagaagsan cab, yani iska ilaali wax mataqaana wasakhaysan inaa cuntid. that's waa nolosha lifekaaga wax ka bedel waaye. midna waa medical yani waa kiniinka lagu siinayo irbadda lagu siinayo weeye. marka waxa u baahannahay inaan fahanno waxaa is leeyahay faktorka ugu weyn waxa weeye oo arrintan mataqaanaa mar walba soo laabadka mataqaan qayb qaadata inay tahay
nolosheena oo sidii hore ah yani aan wax ka bedelin gacmaheena aan fardaqan baa cuntada iskala gelinaa cuntadeena ma hagaagsana shayga aan ka ridayno mataqaanaa ku ridayno ama kaan ka ridayno ama kaan ku cunayno intooda ma hagaagsana mar walba waa aragtay duqsi iyo mataqaanaa cayayaano kale oo mataqaanaa jarbs daryaala nool that's why marka ma adko cafwan ma fududo marka in mataqaanaa aan ka dawoobno oo si dhammaystir ka dawoobno midda kale inuu soo laabto xadiida ma jiraan haddii as aragtiin wixii keenaya waa soo laabanaya haddii life stylekaas fiican u hagaajin wuu soo laabanaya dabcan marka qofkii instruction sameeya oo dadaala oo yani ku talagala inuu mataqaanaa gacmihiisa hagaajiyo shay wax ku cunaya hagaajiyo cuntada hagaajiyo cunto nadiif cuno dabcan nadaafadda aan ka hadlayna marka caafimaadka la joogana meesha waa inay bacteria ku jirin virus ku jirin saas oo kale waaye laakiin nadaafadda caadiga ah anagu naqaano waxa weeye shaatigu ma ku dhaqan yahay suloolku ma ku dhaqan yahay adigu yani ma qubaysatay mana dhaqatay saas waaye marka waa ka duwanta marka waxaa leeyahay qofkii sameeya inta hadda sheegay oo cuntada iska hagaajiya cunto hagaagsan oo nadiifa cuna shaygu ku cunaa iska nadiifiya gacmaha iska nadiifiya inuu mataqaanaa ku dhicitaankiisa ku yaraanayo maasantiin wixii kaloo su-aalaha ka qabteen cuduradan iyo kuwo kaloo ka duwanba insha allah wala soo wadaagi karteen maasantii baaraka allah fiikum